maansada dhimirka marka waan iska guda galayaa erayadeeda wixii arkaadan gadaal ka sharaxda doona insha Allah wuxuu yiri maansada waxay tiri dhagahan awdbow wax maqal afkaygow erayadii bulshada nabad ugu dhawaaq dhacdada dheehoo dhagee miskiinka dhankiisa dhow kan dhaadan dhambaal u dhiib rabbaa ina wada dhigo jidhkeennaa wada dhashee miyaad nici kii la dhigay haddaad yeestid ka warraado oo labis qurux badan weeyo qof duruufaysan ee dhib u geystay inuu duruufoobo usasagu sheegin aad yeestida tirayka oo nusudeedoo kale noqdo anigu waan ahay alla kama dhigin hadda sidaas ogow rabbaa ina wada dhigo jidhkeennaa wada dhashee miyaad nici kii la dhibay haddii dhimirkiiyo caqligu maskaxdu kugu dhowran tahay haddii dhimirkiiyo caqligu maskaxdu kugu dhowran tahay haddaad dheeftaad cuntiyo dhigaar kuu kaytan yahay ogow midaan dhaashan baa jimbiga dhinacaaga yaal midaan waxbaba haysan oo noolayn oon waxba haysan baa kula derisa qofka kula deriska waa ninaan waxba haysan uma sugeeyo baahi buu kula joogaa meeshaas haddana adigu ulama ogi ogow mid la dhalan rago dharkiisii xoorayo subxaanku ka dhigay sidaas ayaa weli kaa dhigsuga kan waalan aduu kaa sugayo inaad daryeesho inaad caafimaad geysid hadduusan xataa caafimaadin qofkaan ogow adiga uu kaa fiican yahay oo muxuu kaaga fiican yahay caqligiisii soo alla ma qaadin ilaahay isaguna wuxuu ka qaaday kafaaradii saaray intaa uu waa laba dambi suginaya inaan ugula xisaabtayo maanta qiyaama bal fiiri wuu kaa darajo badan yahay adoo soo cibaadaysanaysid baa laga yaabaa dambi yar oo kaa dhacayaan cadaab u mudato asaguna intaasoo dambiyo uu suginaya miyirkiisu maqnaa wuu kaaga hela wuu ilaahay dartiis loo baalaca maadaama ilaahay subxaana wa tacaala maskaxdiisii ka qaaday dhimirkiisii wuxuu ugu bedelay amaalgud kaleeto inuusan dambi dushiisa ka dhigay iyo kafaaro ayaa weli kaa dhulsuga mid bay baahidu dhigto dariiqyada isaga dhaca ehay dhuuxoo bal eeg dhallaankii aadan iyo xawaa ina wada dhashee hamoodin wixii dhaca inaan eebba dheexanin ogow qofkaan fadiiladaasuu leeyahay hadduu maadaama fadligaas uu leeyahay adna fadligaas ku ixtiraam ilaahay uu siiyey waa darajo ilaahay siiye qofkee ku ilaali ilaa adigu baa la mid baa tahay ma hantin caqliga maadan hantin maalka maadan hantin xoogga marka ku ilaali sidaas kula eeg inaan wuxuu yidhi hamoodin wixii dhacaa inaan eebba dheehanayn maxaa hanad kula dhigaha dabayshu ku dhabanduleed maxaa ruux kuu dhowaa dhaadadka geed loogu xiray maxaa geesi dhiirana dalkeennu ku dhaadan jiray lixaadkiyo dheexa mida dhafoorkii hoos u dhaca waa fiiri markaad fiiri sida muuqaalada fiiristay waxaad maqlaysaa askartii 7 militariga ku jirtay oo adimadoodii waayay fiiri qarankii dhan bay adimadoodii waayay baa haddana daryeel la'aan dadka ugu liitay daryeel la'aan buu dadka ugu liitaa markaasaanan weliba aanan ogeyn inuu qofkaas dhiban yahay annagu ma ogin in qof dhiban yahay hadda maxaad qabtaa dib uga waan fiicanay baad wax weligaa dhiban maaragtay maya hadda bal fiiri qof noocaasa baa kula dhashay oo adiga ku sugahay marka wuxuu yidhi bukaanka waa soo gabagabaynahay mansuur maadaama loogu talagalay barnaamijkii oo iska dhawaa oo iska gaabnaa allaan kugu dhaariyee bukaanka dheef soo dhawee bukaanka dheef soo ballugo dhakhtarka geeyoo dhawee kashiisa ka dhowr xumaa oraahda sidii dhadhaab ha ugu dhihin dhaawacdee ka daa dhayalsiga aadmiga ka dhigo saaxiibka dhabtaa ka dhigo qofka markuu yahay qof walaalkaa ee mudnaantaaskaa leh ilaali inuu walaalkaa yahay ogow oo mar walba la noolo qofka xaaladda uu kula noolyahay hadduu waalan yahay kula noolo xaaladdaas la dareen jidhkaaga waa la dareen haddaadan xataa hiil u tegi karin jidhkaaga waa la dareen marka maansada sidaana kusoo gaabinaya maadaama riwaayada ugu talgalay riwaayadiina ay maan u malanaya tareeninkeed uli jiro saasaan idiin rajaynayaa